Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay iyo falaqayntii ciyaaraha. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa ku aaday kooxda Bayern Munich, halka kooxda Real Madrid iyo Liverpool ay isku aadeen. Runtii wareegga koobka horyaalada Yurub sanadkan xamaasad ayuu leeyahay. Kooxihii waaweynaa ayaa la isku aadiyey. PSG waxay ku dhacaysaa kooxda Bayern Munich oo la og yahay in kooxaha Barcelona, Arsenal ay goolal badan ooga soo badisay. xilli ciyaareedkan waxaa kooxda Paris Saint-Germain jooga ciyaaryahanka Lionel Messi iyo Neymar iyo Mbappe, halka kooxda Real Madrid oo sanadkii ugu dambeeyay ka qaaday kooxda Liverpool ayagana sanadkan Liverpool waa ay dhisan tahay. Jurgen Kloppna wuxuu rajeynayaa in ay ka aarsadaan kooxda Real Madrid, halka Real Madridna ee ayagana yihiin koox awood leh. Kooxda Real Madrid ayaa usoo bixisay dhammaan sanadihii ugu dambeeyay wareegga 8 ee koobka horyaalada Yurub, laakiin xilli ciyaareedka Liverpool ayay ku aaday oo ayadana aanu ku jirin qaab ciyaareedkii ugu fiicnay. Laakiin Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich waa kulanka ugu weyn ee aan daawan doono, waana kulan xamaasadiisa wato. Kooxda Paris Saint-Germain xilli ciyaareedkan waxaa u jooga ciyaaryahanno waaweyn, halka Bayern Munich ayagana ay joogaan Sadio Mane oo la filayo inay iswajahaan ciyaaryahanka Lionel Messi. runtii koobka horyaalada Yurub waxaa ayadana la isku aadiyay Europe League. kooxda Manchester ayadana waxaa lagu aadiyay Barcelona. sanadkani waxaa mar walba kala soco falaqaynta ciyaaraha bagga oo ku qoran tahay Cabdirashiid oo ah bagga hadda cusub. asxaabta waxaan ka codsanaynaa in barnaamijka la sii share gareeyo. waxaan mar walba isku dayi doonaa inaan soo tawino ciyaarihii ugu dambeeyay, iyadoo kooxda Arsenalna ay haasato hogaanka Premier League. kooxda Arsenal oo habeen hore ka badisay kooxda la yiraahdo Chelsea xilli ciyaareedkan waxay u egtahay koox hore u sii socoto, laakiin Arsenal ma isdhehaysa Arsenal xilli ciyaareedkan way ku guuleysan karaan koobka Premier League. runtii dadka dhan iyo supercomputer wuxuu sheegay in kooxda Arsenal xilli ciyaareedkan ay 80% ku guuleysan karto horyaalka Premier League haddii ay sii wada guulaha. tababara Mikel Arteta oo laga weydiiyay arrintaas wuxuu sheegay inuu iskaga gaabsaday in Arsenal xilli ciyaareedkan ay qaado, taas oo la filayo in Arsenal ay ku sii socoto muddo 20 sano oo koobka ay ka habaarneed inay Premier League qaadaan. wararkaas ayaad ku maqli doontaan mar walba. kala soco barnaamijka ciyaaraha baggan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.